muhiimadda loo qabanayay kulankan ayaa waxa uu ahaa mid lagu soo dhaweynayay go'aankii ay shalay xubnaha golaha shacabka Soomaaliya ku meel mariyeen 13 xubnood ee gobolka Banaadir uu ku yeelanayo matalaadda golaha aqalka sare qaar kamida waxgaradka aqoon-yahanka dhalinyarada haweenka culumaa u diinka iyo xubno kale oo kamida dadka ka soo jeedo mid kamida beelaha Soomaaliyeed ee dega gobolada dalka Soomaaliya ayaa fadhiyay kulankan sidoo kale xubnaha kulankan ayaa waxay si aad u taageereen madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo ku fadhiyo kursiga uu ku matalayo beeshan oo maanta shirkan ku yeelatay magaalada Muqdisho xubnaha ugu muhiimsan ee kulankan ka hadlay ayaa soo dhaweeyay tallaabadii ay xubnaha golaha shacabka 13 xubnood ugu meel mariyeen gobolka Banaadir inay ku matalaan golaha aqalka sare waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xildhibaanka ugu matalo kursiga baarlamaanka waxa uu ka kooban yahay macnaha shacabka iyo ka tarjuba shacabka cidda ku fadhido ama matalayso meesha ku matalayso dhawaaqa ay geysan ba mar walba soconay annaga waxa Ilaahay mahadiis ah xildhibaan Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi in uu ka dhiidiyay dhawaaqii iyo wixii aan rabnay waxaan mahadcelinaa baarlamaanka sharafta leh ee cod aqlabiyada ku ansixiyay in matalaad la siiyo kuraasta 13 la siiyo ayagana waa mahadsan yihiin waxa kale oo mahadsan dhalinyarada xabaddan quruxda badan soo qaban qaabisay muujinaysa dareenkooda iyo hamigooda muujinayso ayagana waa mahadsan yihiin waxaan mahadcelin gaara u dirayaa dhalinyaradan quruxda badan ee soo abaabushay hawshan oo uu ka dambeeyo xildhibaankeenna ama wasiirkeenna gadaasheenna ku sawiran ama taagan iyagana waan u mahadcelinayaa munaasabadan quruxda badan ee ay soo abaabuleen ee ah in dhalinyaradu isugu timaado kuna taageerto kaalinta ay iyagu ka soo dhalaaleen haday yihiin golaha shacabka Soomaaliyeed oo ay u horeeyaan gudoonka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu dhamaantood ay ka qayb qaateen abwaan badal jaamac iyo imaam Cabdullaahi Waama oo kamida xubnaha kulanka ka hadlay ayaa u mahadceliyay xubnaha golaha shacabka iyo madaxda dalka golaha baarlamaanka beeshani waxay ku leedahay ninka farnacab kuma taagin sida uu uga halgamay ee uu tashkiiliyay iyo qaybtu ka qaatayna isagana waa u mahadcelinayna waxaana leenahay wiil iyo aabihii baa dagaal galayo wiilkii baa waran ku dhuftay ninkii cadowga la dirirayeen siyaaba ma arkaysa saan ugu dhuftay siyo waa intaas oo kala sii dhawaataa Cabdiraxmaanow cidna uma maqna ceelna uma qodna beeshan aad ka dhalatay godkii adaa ugu jira haddaadan ilaa 3 iyo 4 muxuu sanatar aadan keenin 3 ilaa 4 sanatar haddaadan keenin beesha sheekhaaleed meeshu way ku qatan tahay canshuurta ugu badanna ayagaa bixiya waxaan intaa ku leeyahay wax kale ma ahane baahida kaligaad aan hor taagan waa inaan helnaa muxuu kuraas kale oo kaaga mashquulno Maxamed Cali Wahiliye Universal TV magaalada Muqdisho